Audio Jungle. Audio Jungle. daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa janalka dabagalka wararka waa 3 bisha 11 2019 wararkan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah xaaladaha Itoobiya ay u marayso qabsashada dekada Soomaaliya oo la shaaciyay iyo qorshaha Abiy Ahmed oo halis ku ah madaxweyne Farmaajo barakac ka bilowday Guriceel ciidanka dawladda oo la wareegay xarumaha ugu muhiimsan degmadaasi ahlu sunna oo careysan iyo hub aruursi ka socda degmada Guriceel dawladda federaalka oo mushaarka bishan ka joojisay shaqalaha dhowr wasaaradood oo kamid ah xukuumadda Soomaaliya dawladda oo saraakiil sarsare u xirxirtay ciidan ka tirsan xoogga dalka oo la laayay iyo taliyaal xilalka looga qaadayo iyo bangiga adduunka oo malaayiin dollar ugu deeqay Soomaaliya intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu darkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto oo hel 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka share garee oo la wadaag saaxiibada kumaadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey janalka dabagalka wararka haatan warkiyo fidsan dawladda Itoobiya ayaa waxay doonaysaa in ay Soomaaliya ka hesho dekado ay iyada maamusho sida lagu daabacay wargeyska afka dheer ee Daily Nation sidanu ka soo xiganay maqaalka xukuumadda Addis Ababa ayaa u maraysa helitaanka dekadaha wada xaajood ay la gasho hogaamiyaasha maamulada ujeedka ay u doonayso marsooyinkaas oo tiradoodu ay tahay 4 ayaa waxa uu ku sheegay wargeysku si ay kaga faa'iideysato danaheeda qaaska ah Itoobiya waxa la sheegaa in baahiyaheeda ay ku bedelanayso mashaariic horumarineed waxna maamulka dekada ay kala hadlaysaa dawladda federaalka bishii June 2018 Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay ayaa is-afgarad arintan ku saabsan la galay madaxweyne Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale qalinka ku duugay in Soomaaliya qayb ay ka noqoto isbaahaysiga saddex geesoodka ee Abiy Ahmed iskaashigaas ayaa waxa uu ka dhaxeeya Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea waxaana ka maqan Djibouti iyo Kenya oo Abiy Ahmed si gaar ah u la kulmay badigoobka Abiy Ahmed ee dekadaha Soomaaliya oo hadda xoogeystay ku soo aadaya xilli gobolka uu ka socdo loolan juqraafiyeed oo dalalka qaliijka ah loolankaas oo ku saabsan dhanka dekadaha iyo juqraafiga ayaa laga cabsi qabaa inuu saameeyo Soomaaliya marin muhiim u ah dhanka adduunka tani waxay xoojinaysaa iskooxaysiga ka socda gobolka ayuu raaciyay qoraaga warbixintan oo ku daray Soomaaliya iyo Kenya iyana waxa ka dhaxeeya muran ku saabsan badda Soomaaliya dawladahan waxa dhex taala dacwad dhanka badda ah oo ku aadan goob xadka ku taala oo hodan ku ah kheyraadka ayna xukmin doonto maxkamadda ICJ cidda iska leh Itoobiya oo ah dal aan bad lahayn ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuu sameysanayo ciidamada badda taas oo la rumaysan yahay inay qayb ka tahay qorshaha marsooyinkan markana Guriceel ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qabsaday xarumo ku yaala magaalada Guriceel kadib iskoorimaada xalay ka dhacay halkaasi dhowr ilowreed ayaa noo xaqiijiyay in la wareegitaanka u yimid markii ay baneeyeen ciidanka ahlu sunna meelaha muhiimka ah ay qabsadeen ciidanka dawladda waxa kamid ah saldhigga ammaanka degmada israasaaseen daqiiqada socotay ayaa timid markii wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye uu halkaasi tagay Cabdullaahi Maxamed Barre gudoomiyaha Guriceel ee ahlu sunna ayaa ku eedeeyay wasiirka inuusan ku soo wargelin socdaalkiisa iyo ujeedka uu ka damacsan yahay maadaama ay xiisad jirto wasiirku oo imaan kara Guriceel waa hoygiisii ayuu yiri laakiin annaga madax ka sareysa ayaan ka amar qaadanaa xaaladda magaaladana haatan waa mid degan ayuu yiri gudoomiyaha waxa maanta si weyn looga hadalhayaa degmada Guriceel ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo guud ahaan la wareegay magaaladaasi iyadoo arintan ay ku soo aadayso ciidanka dawladda oo shalay ahlu sunna kala wareegay magaalada Matabaan dhaqdhaqaaqan ayaa ku soo aadaya xilli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa xukuumadda Soomaaliya iyo ahlu sunna taasoo ku saabsan
cidda maamulaysa doorashooyinka iyo xulista xildhibaanada galmudug. barakac ayaa ka bilowday magaalada Gurceel. dadka waxaan isku dayaynaa in aan dejino ayuu tibaaxay gudoomiyaha degmada Gurceel ee Ahlu Sunna. ila wareedi ayaa noo xaqiijiyay in Ahlu Sunna ay doonayso in baarlamaanka cusub ay ka hesho 35 xildhibaan. qorshahaas ay ka soo horjeedaan beelaha qaar ee galmudug walow xukuumadda ay u ballan qaaday. dhanka kalena dowladda federaalka ayaa mushaarka bishan ka joojisay shaqaalaha dhowr wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. ila wareedi ayaa xaqiijiyay in bishan mushaarka laga joojiyay ugu yaraan 5 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in shaqaalaha ka tirsan wasaaradahan la hakiyay mushaarkii la siin jiray waxna maalmo ka hor la bixiyay mushaarka shaqaalaha kale ee dowladda Soomaaliya. wasiirka maaliyadda xiriirlaha qaranka iyo guddi ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa amray in wasaaradahaas aan mushaarka bishan la siinin ilaa inta uu ka soo baxayo amar kale. xogtan helna ayaa sheegaysa in wasaaradahan mushaarka laga joojiyay lagu tuhumayo inuu ka jiro musuqmaasuq xoog leh. waxa sidoo kale xogtu ay sheegaysaa in tobaniyo qof oo aan dalka ku sugnayn iyo kuwa aanan shaqaynin bil walba si joogto ah ay u qaataan mushaarkooda. waana sababta keentay in la hakiyo mushaarka ay xaq u lahaayeen shaqaale kale oo ka tirsan wasaaradahaasi. xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay dhowr jeer inay la dagaalamayso musuqmaasuqa waxaana muddadaas lagu guuleystay in liiska shaqaalaha laga saaro 100 qof oo maqan bil walbana ay u soo dhici jirtay mushaarkooda iyo sidoo kale magacyo been abuura. geesta kalena dowladda Soomaaliya ayaa xirtay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaasi oo loo xiray weerarkii lagu qaaday saldhigga Ceel Saliini ay ku dhinteen in ka badan 30 kamid ah ciidanka militariga Soomaaliya. saraakiishan oo madax u ahaa ciidanka weerarkaasi ku dhamaaday ayaa muddo toddobaadyaha lagu hayay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay dayacad ciidan iyo mid hub. wararkan helna ayaa sheegaya in raggan su'aalo laga weydiiyay weerarkii xanuunka badnaa oo argagixisadu ka fuliyeen xirada Ceel Saliini iyo hub iyo gaadiid halkaas ay ku qaabsadeen. xubno ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyay in qaar ka mid ah saraakiishan si ku meel gaar ah shaqada looga fariisiyay waxaana suurtagal ah in xilalka laga qaado qaarkood maadaama la sheegay in ay jirtay dayacad laga baaqsan karay. weerarkii argagixisadu ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo deganaa xirada Ceel Saliini waxa ku dhintay in ka badan 30 askari waxaana sidoo kale ay ku qabsadeen argagixisadu 8 gaari iyo sanad ciidan. ugu dambeynna bangiga adduunka ayaa malaayiin dollar ugu deeqay Soomaaliya kadib kulan ay soo qaban qaabisay hay'adda bangiga adduunka ee ka dhacay magaalada Washington ee dalka Mareykanka. waxa bangiga adduunka uu lacag malaayiin dollar ugu deeqay Soomaaliya taas oo lagu caawinayo dadka dhibaataysan ee ku sugan Soomaaliya. shirkaasi waxa Soomaaliya ku matalayay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Sadiq Warfaa waxaana uu sheegay in bangiga adduunka uu Soomaaliya u ballan qaaday inuu siinayo lacag dhan 65 milyan oo dollarka Mareykanka. waxa uu sheegay wasiirka in lacagtaas loogu talagalay daryeelidda iyo ilaalinta bulshada gaar ahaan dadka barakacay iyo kuwa dhibaatooyinka kale ay haystaan isla markaana lacagtan ay tahay mid Soomaaliya lagu tijaabinayo. xubnaha bangiga adduunka ayuu sheegay inay u ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada dhinaca bulshada oo ay siinayaan Soomaaliya waxaana uu sheegay in rajo weyn uu ka qabo fulinta arrintaasi. anigu waxaan u joogay shir ka dhacay bangiga adduunka oo wasiiro qaar lagu casuumay oona looga hadlayay wax la yiraahdo siyaasad waxa lagu yiraahdaa ilaalinta bulshada baan ka qayb galay oo sababta xitaa wasaaraddeeda ayay ka caawiyaan bangiga adduunka barnaamij ilaalinta bulshada ah marka wada hadallo iyo inay barnaamijkii ay sii taageeraan ugana madacay taageerada. waxaan ka helnay hirdilo fiican oo ay sii wadi doonaan ayna ku qanacsan yihiin habka horta barnaamijkan waa markii ugu horeysay ee nidaamka dowladda dhexe la soo marinayo central bank system waxa la yiraahdo. lacagtan ayna siinayaan oo ilaalada bulshada la siinayo dadka mataqaanaa tabaalusaysan oo la doonayay in deegaanadooda ka soo qaxin oo deegaanadooda joogaan. marka lacagtaas waa dhammaan 65 milyan oo dollar. waxay kaloo noo ballan qaadeen inay sii taageeri doonaan. anigu kulley aad baan saasaan ka dareennay. barnaamijkan barnaamij cusub weeye. sanadkan ayaa wax la yidhahda social protectionka dowladda Soomaaliya hore uguma jirin. waa ilaalinta bulshada dadka nugul oo deegaanadooda inta ka soo qaxi lahaayeen lagu taageero. guud ahaan haddii aad ku cusubtahay channelkan kusoo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka share garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad daawatay muuqaalkan.